goboleed madaxweyne dilla madaxweynaha ana si meel gaar xalal iyo magacaabay adoo madaxweyne lagu dhiibay ana maxaa naqanaa marka ya dhulka u tirtire dhulka u tirtire madaxweyne ku meel gaar ana xalal iyo magacaabay ama ogolaa ilaa boqol beri la soo shaqo dhulka inuu ku dhaqaayo anigana waardiye ah baabuurta ka furfuraay dadka marka maya ahay qof wasta lataliyeed ani waaye idinka waxaa waaye lataliyeed ani waaye wax walba ay qabanayso aniga la tashanay faan may maano cuntada karne dhulka dhaqe anigana biyaan kugu shushubaa albaabka ganjeelka waa soo furaa hawlahaasaan leenahay la taliya haddaa noqoto la taliyaha waxaa ah ninka zawjkeeda ahaa la taliye ah la taliyaha aniga waade la taliyaha waa aniga kaasay adiga waa sax number 8 waa la taliyaha laakiin qofka u doorato waaya aniga la tashanay hadday rabtin meeshaas aadayso aniga la tashanay hadday rabtin inay quraacato war ayada ma dooranaysa la taliyaha ha gabdhaha ayada doorta qofka ay la taliye ama qofka la talina ayada dooranayso duwayda ina cali hayr aniga hal saac oo qura haddii madaxweyne laga dhigi lahaa maaragtay xabsiga jinacow oo buuxaa la arki lahaa rag lee ka buuxo xiq ninkii laba naag isla aroosaba waa xiri lahaa marka la taliya waxaa lagaa rabaa ninkii laba naag qabo dhan xabsiga ka buuxi lahaa oo xalaal hadduu ku qabo oo ilaahay u baneeyay maxaa diiday la taliya ku noqdo saddex gardar maad ku xiraysaa walaalay araw ku xira waay aan laba naag saddex iyo afar u aroosta ku xiri lahaa ilaahay u baneeyay ma ilaahay wax u baneeyay mana hor istaagaysaa laakiin qofkiis kuma qanacsan laakiin haddii qofkiis ku qanacsan tahay waa u daynaa laakiin bas qanac ruwaydo anaa ku difaacaya aniga ilaaha u banay maya listen haddii naagiis ay ku qanacsan yihiin ay dhan yihiin waa rabnaa maba taabanayo laakiin haddii xaaskiis hore ay ooynayso waa xiraa maahane waa ka jijibinaa weliba anigana waa kula qabaa inaa xere ka dhaafe iftiinka ka qari lahaa inta soo wada naag laba naag hal xabaa walaasha kula dhalatay walaasha adig kula dhalatay in lala arooso ay maalaba soo masirtay soo ogta raalli maa ka tahay bes naag maalintaa hadday iyadu raali ka tahay anigu maxaan ka qaban karaa nin soomaaliyeed miyahow alla yaa la kala gardaan gabdhaheena xooga ku haysatiin gabdhaha nugu dira aryaa saciido gabdhaha laba aadee labo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi nin soomaaliyeed gabadha soomaalida sharafta badan ee carabta badan ma qancin karo wuu iskan qancin kara hadda ani dheh su-aalaan ku weydiinayaa inuu ninka oo laba naag guursado afar naag guursado ma dembi baa wax dembi ah miya haddii naagu waa ogol yihiin qabtaa laakiin waxaa lagu dhawaa markaad awood haddaba fiiri listen to me imaqla qofaan awoodin muxuu u guursanayaa qofaan u awoodin maba guursanaya fadhiisa ka fadhiisa abti dhagayso bas sarxib markuu ilaahay afarta markuu banaynaayey waa markaad awoodo oo qofka nolosha xigmada uga jeeda xigmad ahayd isweydiin haye muslimiinta in la badiyo haye in muslimiinta la badiyo haddana xaqa iyo waxaas in la fiiriyo haddii gabadha fiir saaxib halle kasoo qabo halle diinteena islaamka waa ogolahay afar inay noo banayso waa ogolahay xagga noo dhig haye adiga afaraa guursatay caawa inta ayaad seexatay xaaskaana la seexatay habeen dambana xaaskaasaa la seexane haye xaaskaaga nin kale inay la seexato ma ogashaadi waa may gabdhahana saas oo kale oo damiir kugu jira ku jira dhagayso damiir horta dhagayso waa hada dhagayso damiirka jira adiga
ku jira gabadh xanuun qabanayo inaad caawa xagga safanayso ay ku og tahay adigana ku gala caawa naagtaada wallahi hebela la jiifanaysaa way safanaysaa xanuunku qabanayo qabanayo dhegayso labay kala tahay dhegayso hortii dhegayso labay kala tahay ayadoo markay ayadoo la qabo nin kale ay la seexato dadaalka ilaahay ka gasho waa dhegayso adi ninkaa dareemaysa oo kale annagana dareemaynaa dhegayso horta midaan idin weydiinaya horta ma hadli karnaa horta kamerada furo geedaha iska wada qaad public soo istaag publica soo istaagaya aniga adag ma kamera isku buxuna mise fikrada fikradiisu dhiibanaya qarin caddayso waxaagii hadna laga wada duubo ra'yiga haddaad xaas leedahay inta la imow haddaad mid kale u baahan tahay su-aalaan ku weydiinaa keenka cawada saliid iyo sokor in loo karkarsado maaragta oo lafaha laga sheelo dhegayso horta fiir Soomaaliya in la isfahmo waa muhiim qof walba inuu fikradu dhiibanayo wax xoog la dhahayna ma jirto fikradaada يعني وان احترامها تيدن احترام والله وكو احترام هداد يقنعسد ورا maxaa ka qaniya qanis maxaa keen ilaahan kugu dhaashay wiil Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed hal xabba qancin kara ma ku jiro lacag ha noqoto adiga naftaada ka hadlaysa qofka naftiisa kama hadli karto walaal no ma jiro waxa iga qaldan adi banaanka soo dhig ma qancin kariya lacag mas gacanta saasa ka tihiin wallahi dahab maanta taqam iga bay ku dhaxdo ma rabtid aabba best aabba ilaa hadda aan waxaan aaminsanahay taadu inaan ka hadlayso waa kana dhigeyso markii mantaqa kan Allah kuride okay dhigeyso markii aabba adigana oo taada kaliya ka hadal laakiin bini'aadanka shantan farad isku mid ma dhigi maxaa ka qaldan horta adina ma ku jirtaa malaayiinta Soomaalida ee 15 milyan ama 30 milyan ma wax dheer taadi orani shantan farad ilaahay ma kasmina ku dhayniyo nin walba isku aqli maana jacayl ma leedahay jacayl ma leedahay now magaceeda saddexaad ka taqaana yes ayadar ku widi adoo ogtiir inuu ilaahay ragga afar u banay kala baxay naagtaada inaan la seexato haween dambe kala la seexato haween dambe ninka dareemi ma qancin karta afar ma qancin karta ay ma kula og sidaa ku qancay dhigin caawa xanow nisbadu waa adkeed isfahanini adigini oo yurubtaan dhaxantay kugu dishay anaga aab Soomaali hadaan isku midaan aab adigina ragga ani dhaxanta yurub hadii igu dishay dhaxanta meel bay leedahay yurub kala la imaaday xaashi wax ma tarto biritool wadankeeni meesha ku dhalan meesha ku barbaarna u noqonayna okay intee joogtaan now xaaliyan laba naag ama laba reer ama laba gabdhood laba guri ma u kala kartaa dahab ma انت قال لا انت عايز وراني يوروب وحما تركيا الجو هذا انا كسو تقني يوروب ورتركيا جاي لا اصحابي دغالك maxaa la isku haystaa macna qof walba fikrad buu dhiibanayaa listen qof walba fikradiisa in lagu ixtiraamo waa moogtaa adiga waa yani labadiina laba bini aadan oo kala duwanaatiin isku caqli ma tihiin isku garasho ma tihiin والله one girl والله يا بني war adigu fiiri dhagayso adigu fikradaada xoog ma ina aniga iga dhaadhicisid moogtaa afar xaas oo gashaa afar xaas diintu way banaysay diid balaaday waxay diinta banaysay noo diid kaala ani diinta diidana ma ku dhihi diintu way banaysay laakiin haddaad awooday waa meesha taala ma awoodaa that's why dhagayso sweetie sheekada waa ka horeysay wuxuu dhahayaa ninka ma taqaanaa wuxuu dhahayaa
diintu way banaysay qofka hadduu awoodo inuu samayn karo laakiin awoodii haa way banaysay diintu lama diidana taa ma samayn inay karo hadduu awoodo ma awoodi karuu leeyahay qof bini aadan awoodi kara ma jirtaba u dhowyaa asiga firi wiil soomaaliyeed way jiraan dad awooda may haddii tan tahayna waa mid maxaa jira hadday tan tahay miduu uroon yahay hadday mid cabsanaa hadday jecel noqoto miduu jecel yahay afartooda isku si wallaahi oo bilaah oo tallahi muu dhaqmaayo midna laakiin caafimaadka haddii la fiiriyo mid baa kuu fiican madax xanuun ma fiicna taas asiga daniisu qofka xirta taas caafimaadkiisa asigaa og laakiin waxaan ka hadlaynaa horta in lis dhegeysto saciido aan kula kaftay saciido dictatornimada joogi oji kaligiis ani waa ogolahan ku dhahay laakiin annaga firi inaa qoraysid hoos hoos u dhig aan dhammaan ay jaran annaga baaba'anay waxaa ogolahay qof walba in afar lagu daro gabdhaheenna ay ku qancaan waa ogolahay laakiin ma qancin karna saaxib waxaa والله dhahdaa كان waxaa dhahdaa انت sug 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 waxaa dhahdaa anigu naf ahaanteeda ma qancin karin dheh dadka kale ha ka hadlin صح firi aawo ناس aawo intaa ka dhaarne ilaahay billahi ala adaan ku jeclahdee habeen dambana gurigala laabtan iyo laba uma qaybsanto dee hal qof buu jecel yahay waxaa laga yaabaa inuu jacaylkan u wada qaybiyo inta hadlayso oo sug sug warog gabdha hadlayso soo bax adiga xitaa soo bax oo la isku dhagan yahay soo bax soo bax soo bax aniga ha aniga ha soo bax آه. soo bax oo la isku dhagan yahay بسم الله وهاد ما افرح ay soo saar wax yar kadib waa soo baxaya hadda xoogaa bes ay tartiibtaada ilaa xalmad banaan bes okay wey اوكي ترتيب كامل ديسو ابل aywa aamusa هذه سمي dadka ku xirin aabo maxaa samayn kartaa saaxib Nah. adiga laakiin marka annaga dumar ahaan markaan ka hadalno dee naagna ma ogolen hala idin qancinaa waxaan qancinaa wiilkan oo amiin